Filimkana waxa uu ku bilaabanayaa gabar lagu magacaabo Jill taasoo dhismaha jaamacadda ay ka shaqeyso kusoo gashay si dhuumasho ah. Shaybaarka ayay soo galaysaa daawo ayayna ka xadaysaa. Maalintii xigtay daawada waxay ka iibinaysaa nin lagu magacaabo Garee kaas oo siiyey lacag ka yar intii ay ku heshiiyeen. Ayadana way soo baxaysaa waxa ayna imaanaysaa guriga sodohdeed Doris si ay ilmaheeda ugu soo wadato kuwaasoo lagu magacaabo Matilda iyo Noor. Dorisna waxa ay xasuusinaysaa inay horay u keento carruurta iyadoo muujinaysa in aanay haynin. Inta lagu jiro safarka Jill waxay isku dayaysaa inay su'aalo weydiiso ilmaheeda. Matildana waxay ahayd qof faraxsan laakiin Nuux wuu xanaaqsanaa. Sikadiis raadiyaha ayaa damayo gaari fariin goostay ayaa ag marayo. Ayakana gaari kale ayaa ku imaanayo shil ayayna galayaan. Gaarigooduna biyaha ayuu ku dhacayaa. Jillna ilmaheeda suunka ayay ka furaysaa si ay biyaha ugu baxaan. Way soo baxayaan markii ay banaanka imaadaan. Matilda ayaa suuxsanayd 2 askari ayaa badbaadinayo. Jillna waxay u sheegayaan inay isbitaal aado maadaama madax dhaawac uu ka soo gaaray. Sidoo kalena waxay u sheegayaan in magaalada korontada ka tagtay. Isbitaalka ayayna imaanayaan way la yaabayaan markii ay ku arkaan dad badan oo dhaawac ah. Dad badan ayaana la yaaban waxa dhacay maadaama korontada saameyn ku yeelan karin baabuurta. Waxayna u haysteen in weerar argagixiso lagu soo qaaday. Dhanka kale Jill dhaawaceedu waa mid fudud. Dhaqaatiirtana waxay xoogga saarayeen dadka aadka u dhiban. Ayadana waxa ay ku qasban tahay inay nafteeda daryeesho. Kadib waxay ku soo noqonaysaa guriga sodohdeed waxayna u sheegaysaa in aanay taleefanadu shaqaynaynin. Dukaamadanu kaararka aanay aqbalinin maadaama ay korontada go'day. Jillna waxay ku qasban tahay inay guriga sodohdeed joogto. Habeenkii ayaa la gaarayaa. Jillna hurdo ayaa kasoo dhici weynayso. Fadhiga ayayna imaanaysaa. Sawirada carruurteeda iyo ninkeeda dhintay ayayna fiirsanaysaa. Sodohdeed Doris ayaa u imaanayso waxa ayna rabtay inay daawada hurdada siiso. Laakiin Jill ma qaadanayso. Sodohdeed Dorisna waxay u sheegaysaa inay caawin doonin. Matildana way hurday. Jillna waxay aragtay Nuux oo soo jeeda. Waxa ayna isku dayaan inay la tacaalaan xaaladda hurdo la'aanta. Xidigaha ayayna fiirsanayaan kadib Jill shaqada ayay soo aadaysaa. Waxa ayna ogaanaysaa in qof magaalada jooga aanu seexan karin. Qof walbana inuu mashquuliyo. Jillna waxay ku dhacday Garee kaas oo raba inuu iibsado daawooyin badan uuna bixinayo lacag aad u badan. Ayadana waxay u sheegaysaa inay fiiri doonto markii ay shaqada tagto. Markii ay jaamacadda gasho qofna kuma arkayso. Markii ay shaqadeeda u dhamaato subaxdii Jill waxay galaysaa shaybaadhka si ay daawo u soo qaado. Laakiin silma filaan askar hubaysan ayaa soo galayo. Jillna gacmaha ayay kor u taagaysaa. Kadibna Dr. Murphy ayaa soo galayso. Ayadana way niyad jabaysaa markii ay aragto Jill oo daawo xadayso. Mana rabto inay maqasho hadalkeeda. Murphy iyo kooxdeedana waxay sharxayeen inay sameeyaan xarun cilmi baaris sababtoo ah tan iyo markii korontadu tagtay qofna ma awoodin inuu saaxdo. Murphyna waxay u sheegtay Jill inay ku biiri karto laakiin Jill way diiday. Brian ayaana soo galaya ka hor intaysan bixin. Murphy waxay siinaysaa Brian ciwaanka xarunta cilmi baariska kadibna way baxaysaa. Brianna waxa uu u sharxay Jill sida hurdo la'aanta u saameynayso qof walba. Dhowaan waxay la kulmi doonaa dhalanteed ugu dambeyntiina qalbigooda wuu istaagi doonaa. Hal qof oo dumar ayaa ku guuleystay inay seexato. Haddana waxaa la geeyay xarunta si ay u baaraan sababta ay dadka kale ugu duwan tahay. Jillna waxay u sheegtay gabadheeda Matilda inay seexatay markii ay soo bixisay. Brianna waa uu la yaabayaa wax uuna ku dhahayaa waxaa laga yaabaa inay dhimatay. Jill oo welwelsan ayaa dib ugu soo noqotay guriga sodohdeed waxayna aragtay Nuux kaasoo u sheegay in sodohdeed Doris Matilda ay geysay kaniisad. Jillna waxay soo aruurisay waxyaabo badan oo ay u sheegtay Nuux inay soo wadi doonaan walaashiis. Laakiin markii albaabka furaan Brian ayaa soo galaya wax uuna rabaa in Matilda la geeyo xarunta cilmi baariska si loo baaro xanuunkana daawo loogu helo. Laakiin Jill way diiday iyada iyo Nuuxna waxay dhex marayeen magaalada halka Brian uu raacayo. Dadkana waxay bilaabeen inay maskaxdooda dhumiyaan oo ay waashtaan taasoo u keentay inay wax burburiyaan. Jill iyona way sii socdeen waxa ayna jidka ka heleen meyd qashinka geeskiisa yaalo. Jillna way naxday markay aragtay inuu yahay Shariif. Nuuxna wuxuu weydiiyey waxa dhacayo. Jillna waxay u sharaxday in hurdo la'aantu ay keento maskaxda bini'aadamka. Dhanka kale Doris waxay Matilda u geysay nin lagu magacaabo Buster kaasoo ku dhiirigeliya Matilda inay seexato si ay ugu noqoto calaamad rajo ah dadka hurdo la'aanta ah. Marka ay seexato wadaadku waxa uu u sheegay dadkii isaga aaminsanaa in ay hayaan gabar awoodo inay hurdo oo ay xal u keeni doonaan dadka hurdo la'aanta ah. Si kastaba ha ahaatee markii Matilda ay soo kacdo oo ay sodohdeed Doris ku daydo inay wadato dadku waxay bilaabeen inay weydiiyaan goorta ay ka caawin doonaan inay seexdaan oo ay xitaa ka fikiraan. Busterna waxa uu isku dayayaa inuu dejiyo. Jill iyo Nuux iyo Brianna meesha ay imaanayaan booliska ayaana celinayo. Brianna ayaga ayuu dejinayaa wax uu isku dayayaa inuu wax ka dhaadhiciyo. Jillna waxa ay doonaysaa inay Matilda ka hayso laakiin dadka way ka soo horjeedeen. Brianna waxa uu sheegay in qof walba hurdo la'aanta khalkhal gelinaysa shakhsiyadooda oo ay u sheegaan xarunta cilmi baariska isaga oo u ballan qaadaya in ay saynisyahanadu arrintaa xalin karaan. Busterna wuu diiday inuu u ogolaado Matilda inay tagto xarunta sababtoo ah waxay noqon doontaa mawduuc tijaabo ah. Brianna waxa uu ku hanjabay inuu la soo noqdo ciidanka. Booliskana Brian ayuu tooganayaa dadka dhammaantoodna cabsi ayaa galayso. Dorisna Matilda
albaabka dambe ayay ka bixinaysaa. Booliska iyo dadka kalena ayada ayay bursanayaan, waxa ayna baarayaan qolalka kaniisadda. Dorisna Matilda meel ayay ku qoraysay. Kadib Jill Nuux waxay u sheegaysaa inuu kula kulmo keenta dhexdeeda. Jillna waxay aragtay gabadheeda oo ku dhuumanaysa dabaqa sare, waana in ay si taxadar leh uga baxaan, sababtoo ah booliska ayaa ugu hanjabay inuu toogan doono haddii aysan gacanta u soo gelinin gabadha. Nuuxna kaniisadda dhexdeeda ayuu ku jiro, asigana waa mid naxsan, jeebka bareen ayuuna fiirinayaa. Waxa uuna ka helayaa ciwaanka xarunta cilmi baariska. Si lama filaan ah waxa uu maqlay rasaas iyo qoyle, sidaas darteed meesha ayuu ka cararayaa. Waxa uuna aadayaa keenta si uu ula kulmo qoyskiisa. Way ordayaan sida ugu dhaqsaha badan ilaa ay ka awoodaan inay ka dhuuntaan. Waxa ayna imaanayaan meel garaash ah. Nuuxna waxa uu yidhi waa in ay Matilda geeyaan xarunta si ay daawo u helaan. Jillna marka hore way diiday, laakiin mar kale maskaxdeeda way bedeshay markii Nuux uu fahamsiiyey in haddii dadka dhan ay dhintaan Matilda keli ku ahaan doonto adduunka. Jillna waxay u baahan tahay baabuur si ay si badbaado leh ugu socdaan. Jill waxay aaday garaash, waxayna meesha ku aragtay Greg oo dhigbaxayo, waxaana dilay laba tuug ah, ayadana shanqar ayay samaynaysaa.